السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada fiidiyogayga waa walaashid Maryan. maanta waxaan ka hadlayaa waxyaalaha UK ku fiican tahay. baagan jooga waa aragtaan waxa dhira iyo quruxa. UK waxay ku fiican yihiin wadankooda hagaajistaan. meel kasta dhag bay ka siiyeen baleeg waxa dhirta sa u beereen. dadka waxay u sameeyeen meel la fadhiisan karo, meel carruurta la geyn karo, meel qof kastii u bixi karo. markay kulayl ataaka iska jiifjifan gaaladu baaga iska seexseexdaan. meelaha xadiiqadaha iska joogaan oo iska fadhiyaan. marka waa yaabisa quruxdeeda. marka samarka wax ka qurux badan UK waxay kale ku fiican yihiin dad UK waxay ku fiican tahay waxay aad u keergarayaan dumarka uurka leh. dumarka uurka leh aad bay u keergarayaan markuu ilmuhu caloosha galo ilaa uu ka dhalanayo dhiig bay ka qaadaan gabadha, caafimaadkeeda jeegarayaan, ilmaha yar bay jeegarayaan oo eegaan caafimaadkiisa oo iskaan bay saaraan inuu si fiican u korayo eegaan. dawooyin haddii fitamiin u baahan tahay ugu qoraan ilaa ay ka umulayso. dhakhtarkuna waa bilaash, lacag ma bixinaysid. waxay kaloo ku fiican yihiin hadday gabadhu shaqaynayso uurka leh waxay siinayaan fasax bay siinayaan markay 8 bilood gaadho ilaa ay ilmuhu gaadhayo 9 bilood oo fasax ay siinayaan. marka ilmaheeda iska korsanaysa kala joogay lacagteedina waa u soo dhacaysaa shaqada. waxaan ma inay kala bar siiyaan. marka aad bay u caawiyaan dumarka uurka leh. ilkuhuna waa free oo lacag lagama qaadanayo. waxay dentisku waa free. marka ilaa ilmuhu 2 jir gaarayo dentisku waa u free way ilkaha lacag kama qaadanayaan. waxay kaloo ku fiican yihiin hadday wax dhacaan waxay isku dayaan wax kastoo dhaca inay ay bedelaan. sida haddii qof la dilo oo kale waxay isku dayaan inay wixii koosgareeyo ogaadaan oo aanay waxaas dub u dhicin. marka aad bay ugu fiican yihiin xaggaas isbedelka. markasta waxay isku dayaan inay wax ka bedelaan waddankooda oo waxyaalaha problemka ama dhibta dhacda ay ka hortagaan. waxay kaloo ugu fiican yihiin waddaday aad u hagaajiyeenoo waddadooda maasha Allah wadyaabay u hagaajiyeen. intaa waddooyinka ay hagaajinayaan dadku kama aamusaan waxyaalaha dhibaatooyinka ay waxa dhaca. waxay isku dayaan inay la bedelo oo dawladda barashar saaraan. marka qabyaaladii waxa kama jiraan way isku duuban yihiin. wax bedel markasta waa wax bedel doon. marka maanta waxaan sii baaga daawasi dadkan baaga daawasi asxaabtaada. marka baag maanta aad u qurux badan iyo qurux fiican baa ka jirta. intaasaan idinla qaybsanayay. haddaa ka hesheen insha Allah thumbs up si videogan. haddaa igu cusubtiin insha Allah subscribe baan ka rabaa. channelkayga soo support gareeya. aad iyo aad baan idin salaamayaa. ilaahay qabyaalada ka saxayo waddankeena iyo dhibta ka jirta iyo qaraxa iyo balaayada. ilaahay naga dhigo dadaan qabyaalada aqoon isku duuban oo walaalo ah. innal mu'minuuna ikhwa ilaahay yiri. muslimiinta meel jooga ma waa walaalo. marka ku dadaala insha Allah ina carruurtiina yaryar iyo dadka soo koraya isku daydaan in qabyaaladii waxa qalbigooda ka ilaalisano ay dad wanaagsan noqdaan oo waddankooda jecel oo wax bedel jecel oo wax ka bedela noloshooda iyo waddankooda oo qabyaalada qolka ka fogaada. intaas maanta idin la sheer gareynaya. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.